marka ugu horeysa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Maxbuub Sheekh Maxamed. waxyaabo badan hadda ka sii hadli mahayo. dadkii iga horeeyay baa dhammaan ka wada hadlay. waxyaabo yar yar oo anu goobjoog u ahaa iyo waxyaabo laga yaabo aniga naftayda inay gaar ahaan igu dhaceen oo walibana aanan ka wada hadlaynin wixii igu dhacay oo damiirku ii ogolaan inaan ka wada hadlo. waxyaabihii deegaanka ka dhacay wax hadda halkan lagu soo koobi kara ma ahayn. wax shakhsi iyo laba toona ka hadli karana ma ahayn. waxyaabahan goobjooga u ahayn waxa kow ka ahaa maxaan ku dhahay meelaha xasuuq wadareedadu ka jireen ama gobolada ama degmooyinka ama baadiyaha ama qabalayaashan anagu ku noolayn. waxyaabihii ka dhacay wax qalbiganagu soo koobi kara ma ahayn. waxyaabo ilaahayna naga badbaadinaya qaybta badan inta badan aan kor taagnayn ama kor istaagayna markay dhacaan bay u badnaayeen. waxaa ka mid ahaa maxaan ku dhahay ciyaal laba isku hooyo tahay aragtidii aan anigu arkay oo gabadhu 12 jir tahay wiilkuna aan malayn ilaa 14 jir in qiyaasta ahaa oo maxaan ku dhahay intii siriq la geliyay oo geedo lagu xidhxidhay oo laga soo laalaadiyay geed maxaan ku dhahay iyagoo meeyda dawladdiina ay tiri waanu sii daynay laakiin aan la sii daynin markii raad qaad badan la sameeyay ee la raadiyay caruurtii oo meel ku xidhxidhan oo fidigtay oo carabku dhulka yaallo iyagoo geed ku wada xidhan dhulka yaallo ay ka mid ahaayeen. waxyaabahan anagu goobjooga u ahayn kor istaagnay bay ka mid ahaayeen. gaarigii meydka lagu soo qaaday waxay ahayd 2007 gaarigii meydka lagu soo qaaday iyo cidii soo qaaday 2008 isagoo bolale laga soo saaray jeelka weyne ku yaala maxaan ku dhahay gobolka Doolo. waxyaabihii kale goobjooga u ahayn waxa ka mid ahaa dad intii la soo qaaday aan nolol iyo geeri ilaa iyo hadda lagu haynin oo ka mid yihiin gobolka Doolo oo kala gudihiisa ilaa qabala ka mid ah oo maxaan ku dhahay santarka Yucub la dhaho oo iyagii oo ganacsigoodii oo shaqaysanaya dadkii nool la soo qaaday maxaan ku dhahay sidii loo dilahayay ugu dambeyn lagu soo dambaysiiyay halkan gobolka Jigjiga deegaanka Jigjiga hantidoodiina sidii loola horfadhiyay bag am iyo qoryo waaweyn sidii loo dhuuqayo loo qaadanayo dharkii iyo raashinkii iyo xoolihii iyo hantidii loo boobahayay maxaan ku dhahay gurigii oo maran ay ka dhaqaaqeen ilaa iyo haddana raggii nooca ahaa aan meel lagu sheega jirin. madaxweynihii hore waa la soo gaarsiiyay iyagoo lagu daba wada walibana caagatan oo kale ahoo xabado lagu soo guray oo lagu yiri waa kan madaxweyne waxaan ku qabanay maxaad igala soo doonteen fogeeye uu yiri sida la sheegayo buurta Kaaramadho hoosteeda in lagu bireeyay mise lagu aasay ma garanayno. dadkii nooca ahaa qayb ka mid ah wardheer gudaheeda in la qabtaa u dambeysay waxa la sheegayaa kaamka weyna kaamka libaaxida la dhahay gobolka ku yaala in lagu aasay. dadkii nooca ahaa ehelkii qaraabadii baa u kacday xoolaha loo aruuriyay maalinka xoolahoodii loo aruuriyay la yiri agoontii lagu kala wareejinayo magaalada dhexdeeda la yiri waxaas agoontii leedahay bal haysta agoono ee kayaashi in haddana mar labaad laga xasuuqay hantidii oo ciyaalka meel cidlaa ku soo dhaceen. waxyaabaha aan arkaynay ka mid ahayd in goobjooga u ahayn. waxyaabaha aniga si khaasatan ay igu dhacay waxaa jirta maalin oo 2 jeer iyo 3 jeer aniga waa la xidhay laakiin mar walba Ilaahay baa si fudud iiga si daynahayay. markii ugu badnaa 5 bilood baan xidhnaa laakiin maalinkii iigu darayd waa maalinka aan kooma galay 2 saac subaxnimo in la yahay iigu dambeysay 12 galabnimona aan layd ay maraysa aan dareemay. markii aniga iigu dambeysay ee la qabtay gabadh baa layla qabtay in lagu hiya gacmaha intii la isku kana xidhay boga beerka la ii dhiga iigu dambeysay oo guri marka la igu jiiday intuu halka qabtay xarigi bartu isaga imaado lagu hiya gacmaha intuu jiiday iyo qol igeliyay in qolkii ana la iga soo bixiyay oo 12 galabnimo tahay barandadiisa aala nin waardi ay ag fadhiyaan soo miirsaday. gabadh yar dhuuban aad baan u dhuubnaa waxay ahayd 2007 dhamaadkeedii imtixaan baaban galay sideedaada. maxaan ku dhahay gabadha kale gabadhiga hulboon bay ahayd xarigii baa wuxuu qaniinay lagu xidhay lafta oo intuu hilibkii oo dhan ka dusay buu lafta qaniinay anigu waan iska dhuubnaa. waxyaabo badan waxaan soo tooseeno intaydaas dhabanka ah iyo dhabanka midna igu oolin yacni sidiisa la iigu taagnaa waan garanayaa dareen ahaan waan garanahay markii la iigu tubanahay kolba dhaban baan rogahay markuu dhaban iyo ololaba dhabanka kale rogahay si kale isma dhaqaajin karin. hadda dhabarkayga qaybo ka mid ah jabkiisa la isugu kay jabiyay way jirtaa dhakhtarro badan oo ka maray laakiin xubin baa ku kala sikataa la dhahaa mar walba. waxyaabihiina soo gaaray waxaan soo koobi karaa ma aha. gabadhii waxay u dhimatay aakhir oo u dhimatay iyadoo 2 ciyaal ka tagtay 2 way ka daba dhinteen 4 bay ciyaal ka dhashay. gabadhii nooca la igula sameeyay iyadoon marana dhaqan karin gacanna kor u qaadi karin
bay geeriyootay sabab oo jugti soo gaadhay awgeeda marka waxyaabahana soo gaadhay waxyaabo aan soo koobi karra ma aha hadda iyo ugu dambeyn markii ugu dambeysay anigu wadanka ka tagay waxay ahayd 2014 bishii 9aad bay ahayd waxaan xamar tagay 2015 bishii 15keedii markaan la soo hadlay qayb ka mid ah xaafadanada waxa la igu yiri naga aamaha nala hadlina macnaheedu taleefanka waa la igu taray in la maqlaad mooda camal cabsidii dadka haysay alxamdulillah rabbil alamin markaan xagga la soo hadlana bal warano de meel ilaahay laga cabsanayaan tagay awal ilaahay kama cabsan jirin bil aadan baan ka cabsan jiray cabsida ilaahay aan haysa ta bil aadan ka nooga badnayd hadda iyo calaaya xaasil anu waxaan ka mid ahay hay'adda dhibanayaasha waadaamona asaasayaashoodii ka mid ahayn waxaan u ololeynaynaa inaan cadeer iyo cod gaabanba aan ku gudbino dadkii dhibaatooyinku soo gaadheen adeerkaysu ka shanqarinahay waa dhaweeyta kormeero aan sameynay way jirtay waxaan kaga bilownay kow mooyaha ruux shakhsi baan ula kulanay dadka 36 qof ee barta lagu mooro maxaan ku dhahay xabaal wadareedada loo geystay kow bartan ka bilownay bay ahayd ilaa iyo intaan gobolka Qabdahar iyo Qorraxay iyo maxaan ku dhahay doolli iyo aan soo maray jarar waxyaabahan soo aragnay wax caadi ah ma ahayn dadkii 12 ruux ahaa ay kamid ahayd caashanaado ay ka badbaaday ee qori lagu xasuuqi jiray caashanaado cid u baahatay waxay joogtaa maxaan ku dhahay degmada Marsin bay ku nooshahay 48 saac baa cid u timaaday aysan jirin oo meydka kor taallay 48 saacadood bay bartaa taallay iyadoo dhaawaca oo 3 xabadood ku taal oo dadkii lala xasuuqayna laba ruux saas oo kale waxa igu xigtay bay gabadhii layla dilay labada ruux kale gabadh urla ka mid ahayd oo jeelka wardar intii laga qaaday iyo ninkeedii baa isku meel lagu dilay oo ilmihii xabadii markii lagu dhuftay ilmihiina uu dhinaca ka booday iyadoo ninkeediina isgarab yaaleen waxyaabihii halka ka dhacay bay ka mid ahayd waxyaabahan aragna qof 3 bari aasan mise 4 bari oo qabri laga soo saaray oo intii si sanduulla nala soo kaxeeyay la korkiisa nala soo istaajiyay ku dul dhaantay ayaa ka mid ahayd laakiin anigu ana kor istaagin oo intaan meel ka gaban karay aan ka gaban karay laakiin ay jirtay waxa ka mid ahaa kur intii naloo keenay inta laga soo gooyo waxyaabaha dhacay waxay ahayd wadanka ka dhacay qof intii la soo dilay oo lagu soo dilay masaafo dheer kurkiisa intii la soo jaray dadkii saa loo soo hordhigay oo la daawada waxyaabahan arkayna indhahanagu qaban yihiin waxbaan ka qalbi adagnahay insha Allah waxaan u ololeynaynaa wixii dhacay suuna dib u soo noqonin oo wax dambe maxaan ku dhahay oo tii oo kala ah taariikhna aan qoron reebno waxyaabaha aan u ololeynaynay kamid tahay